tahay oo dhaqankii hawlaa dhulkayga laysaaray hibade ilhuwaday hadiya jeer horo socod u baahane ilhuwaday hadiya jeer. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa barta youtube-ka aan ku leenahay ee Haybad Media Production. maanta waxaan halkan kusoo jeedin doonaa ama aan ku eegi doonaa maanse yar oo aan ka sameeyay iska waaqica jira iyo waxyaabahan adduunka ka taagan oo aan ka sameynay. maansadaasi maalin dhawoon ay soo baxday. maansada magaceeda waxaa la yiraahdaa is-afgaranwaa. sababaha aan is-afgaranwaa ugu bixiyay waxaa kamid ah qof kastoo adduunyada joogay wax kastoo adduunka ku nool yaa waxa ka dhex taagan is-afgaranwaa. hadday culimo tahay iyo hadday siyaasiyiin tahay hadday shacab tahay. maansada is-afgaranwaa inahaas ayay daaran tahay. ujeedada iyo dulucda maansadu ay ka hadlaysana iyada ayaynu markaa ku ogaan doonaa. waxay tiri maansadu: sooyaalka gabayga iyo siinleyda maansada iyo sixidda weedhaha samow maxamed xaashiye suugayahan hadraawiye kaariya intuu sugay noo sarbeebe erayada aniguna sidoodaan wadaday sameeyeen suugaan la maraya maantana aan sooriyon suuldhabaalo gabay iyo oo xalay siqdii dhexaan sadrigayga lagu shubay aan marya siinley. adduunyadu samaan male saaciidaad cudoon male samafalid dadkii male salka dhigid wanaag male saxansaxa udgoon male subaxdaad la yaabtana tukalaa ka sii daran samirkiina wuu guray waxaan uga socdaataa saban aakhir weeyo maalmuhu sidoodaba way kala sirgacan yihiin saansaanta guudiyo siday tahay adduunyadu saaka aan arkaya ma samaan isleeyahay. maansadu intaa waxay ka hadlaysaa adduunyada macnaha saban aakhir inay tahay waxyaabaha hoosgaraynaya ama aada u muuqato inay zaman aakhir tahay. diinteenna lagu sheegay waxyaabo badan oo zaman aakhirka waa xilligii ay dhici doonaan laynoo sheegay iyaynu hadda la joognaa. marka adduunyadu inay zaman aakhir tahayna maansadu waxoogaa iyana way daaran tahay. waxaan uga socdaataa saban aakhir weeyo maalmuhu sidoodaba way kala sirgacan yihiin saansaanta guud iyo siday tahay adduunyadu saaka aan arkayaa ma samaan isleeyahay. sabigii iyo dhallaankii iyo waayeelkii kala socoy dhaqankii la siidh gebi laga carar samaantii soomaalinimadii waxyar baan ka sidanaa. micnaha soomaalinimadii waan ka tagnay uun maaha maansadu micnaheedu, laakiin waxaad arkaysaa soomaali dhaqamo kala wadato waad arkaysaa ama soomaali diin kaleba wadato waad arkaysaa. isla markaa social media markaad gasho waxyaaba kaa yaabiyo oo soomaalinimada markaad aragto aad la yaabayso ayaa jira. dhaqankii la siidh gebi laga carar samaantii soomaalinimadii waxyar baan ka sidanaa. saacaddii aan joogiyo waqtigii sugnaadaba salow iyo qayliya sawir beenahoo qoran waxaan maqlayaa sarcad saansaantu waa yool waxa aan sugaynaa suurgoo dhawaaqo qoraxdana siraadkiiyo nuurka sulan la waayo dayaxana la siibo xuduguhu sawaamaan oo siibka dunida loo jaro ayaan wada sugaynaa. ummaddii wax sixilayd dadka samaha farilayd suulin leyd xumaatada iyagaa is haysto sawdka aada maqlaysaa diintii samayd iyo salligii rasuulkiiyo kitaabkii samaaye saatir nagu manaystaa muran saaka joogo anna waxaan samayn karo waa inaan sal iyo baar murti kaga sanqadhiyaa sooriyo uga dhigaa hadal ku saxaa intaan karo. suugaantu waxay ka mid tahay meelaha laga toosiyo bulshada. hadday soomaali tahay iyo hadday maaragtay luuqad kale lagu gabeeyaba. masaajidada iyo meelaha khayrka lagu hayo markii laga soo tago waxay meelaha labaad kaalimaha labaad bay ka gashaa meelaha laga toosiyo ummadaha islaamka ama ummad walba oo dhaqankeeda ku toosinaysa suugaan. waayo abwaanintii naga horeeyay anagu abwaanimo maahe waa midho ma iska tiranaynaa, laakiin dadka abwaaninta ay naga horeeyay ee abwaanimada kula magac baxay soomaalida waxyaabaha lagu toosin jiray ama lagu dumin jiray gabayga waxna wuu toosin jiray xilliyada qaar. hadda laakiin waxaad moodaa inaan saas loogu sii dhowrowsanayn. kitaabkii samaaye saatir nagu manaystaa muran saaka joogo anna waxaan samayn karo waa inaan sal iyo baar murti kaga sanqadhiyaa sooriyo uga dhigaa hadal ku saxaa intaan karo. inta aan sidaa nahay ama muranka surannahay sacabada waxaan jirin u garaaca saarey
samir diidna iyo xeel kala sidana dhowr calan bal meeqa calan baynu kala sidanaa inagu haddaan Soomaali nahay wadan Soomaaliya lahaan joognaa wadankaasi waxaa madaxweyne ka ahaa ilaa 5 madaxweyne waana wadan Soomaaliyeed wala leeyahay dhowr ka calan oo ka shaqeeyaan marka waxay ka mid tahay waxyaabaha la yaab kale ee dunida ka jira waqti xaadirka saacabada waxaan jirin u garaacna saaray samir diidna iyo xeel kala sidana dhowr calan sinta caabud waaqiya saaxil iyo tog dheer iyo sool iyo sanaag iyo xeebaha sintooda iyo saylac iyo ilaa baran guriga sama hargeysa Soomaalidayday salal kama baxaysaan ilaa ood samaataan sinaataan wanaagana saldhigataan Soomaalinimada iyo dhaqankiina sugataan calankiina sidataan oo suunka loo jaro saldhigii qabiilkeena nacsiiyay samaheen nagu tuuray dadkaygii sirqaanshay wax kastuu samayn lahaa isaguun ku maran weli isna yaanu soo noqon sabanaakhir weeye sidaa taa ku dhaafo inay sama ku waartooy adduunyada u sidatooy wanaagana saldhigataan saatirkii ka sugayaa inay sama ku waartooy adduunyada u sidatooy wanaagana saldhigataan saatirkii ka sugayaa gabaygu waa qaybna waa iska duco oo inay sama ku waartooy saatir maartay waa ducadaasi waa duco ma maansa gaaban laakiin gudbinaysa report aad u qiimo badan hadii wax lagu qaadanayo inkastoo ilaahay min hadda Soomaali ay gabay wax ku qaadanayso dhaafno inay sama ku waartooy adduunyada u sidatooy wanaagana saldhigataan saatirkii ka sugaya maansadayda siinka muddo ila siqeysay aan soo meeree saatirow ilaahow adaa samaha bixiyay nagu maamul sida roon jidka saxana aadsi kuwa gala saciireen naaruhu sariigaan saatir waxa naga dhigay maansadaasi intaas ay iga eg tahay maansadaasi waa mowduucaas iyo riboodka noocaas oo ay gudbinaysaa insha Allah waan rajeeyo inaan Soomaalidu wax ku qaadan doonto marka abwaane maansada waxa kugu eliyay waxaad aragtay marka indhahaga aad ku aragtay mise macnaha waxa jawiga dhacay iyo waxa sumad ka sii matalaysa horta waa saaxiibkii waad mahadsan tahay Soomaalidu suugaanta dhowr nooc bay u tirisaa dhowrka nooc ay Soomaalidu suugaanta u tiriso qayb waa malaawaal صح waxa leedahay waa malaawaalo wax dhici doona iyo abwaan ku gabiya sidaan aragnayna waxyaaba ay abwaanin hore noo sheegeen isla maraantaana ay dhaheen waxa dhici doona in hadda waaqican iyo waqti qaarkan taaganahay aan aragnay صح waxa kamida ninka la yiraahdo Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan wuxuu yiri mimiri iyo mobile markaad aragtaan masruuf wixii laga dhigtaa madax dad weeyaan buu صح waa tanada taagan waa waaqican hadda taagan mimiri iyo mobile markaad aragtaan ma jirin marka xilligaas isugu joogay ma uusan jirin hadii uu adduunyada qayb kamid ka jiray laakiin Soomaalida iyo Afrikada qaybaha ka muusan jirin mimiri iyo mobile mid ka muusan jirin marka abwaanku saas wuxuu ku mala awaalay waxa dhici doona iyo si mala awaalay runtii dadkan abwaaniinta waa dad asdahays waxba maartay nooc waxyi ahaana wax loogu sheegaa waasda marka niyo maansadani is afgaran waa sababaha ku soo baxday iyo sida ay maartay aanu ku curiyay waxay tahay waxa maalin magaalada Muqdisho yimid culimo tiri dadka waxaan u qabanaynaa maxaadiro isla maraantaana dadkan wacyi gelinaynaa oo culimo waxaan arki jiray anagu dadka wax u sheegto oo aan la celin yaan arki jiray صح marka waxaan arkay culimadii oo la haysto oo dadkii isku wada dhigan yahay oo la yirina waliba oo qayb baa gaar lagu tilmaamay oo muran dhex taagan yahay awaadada kale celiya ka dhaxday marka aad baan la yaabay waxa kale oo fiiriyay siyaasadii baan fiiriyay صح waa isku dhigan yahay dadkii waxaan fiiriyay qabiiladii baan fiiriyay qabiil baa la soo haystaa صح waxaan fiiriyay shacabkii waxaan fiiriyay dhulkii ma adu dhinacyo badan marka waxaan arkay wax adduunyada isfahansan ba inuu yar yahay haday qabiil tahay haday siyaasadda dad tahayba la isku wada dhigan yahay sida markaas aanu eegay waxaan isriniyo baansa ka curi صح maansadii aan isri ka curi baa qaab aan u curiyo iyo fahmi waay صح waxaan isri ma abwaaniinta iyo dadka tiraahdaa war dadkan la soo hadlo kala qabto oo dadka idinka abwaaniin u yahay صح la hadla ilaa waxa la inoo sheegay suugaanteeda laba aflay tahay laba aflay dhinac cilwadeegsada suugaantu way u dhibi kartaa waxana way toosin kartaa gabaygaas niyo maasada saas ku soo baxday bal waxaan isriiday dad kulay wax tirin kariso wax tirintana kulay
dee awal hore wax hore maan tirin jirin laakiin in dhaweyd gabayada iyo suugaanta waan isku dadayaa maasaduna saasay kusoo baxday marka dadkaagaas uun dee dhibaataysanee maaragtay ishaysta ee muranku ka dhex taagan yahay umaan damca inaan maaragtay aan ku toosiyo marka maasaduna inahaas ay kusoo baxday sababo noocaasna way ka hoosgareeyeen kolley waxaynu ognahay markuu hal abuur meesha imaanayo ama uu qofku uu hal abuurayo wax uu soo saarayo gabay ama tix uu soo saarayo inay caadifad ka keenayso wax uu dareemayo markaas sax inuu ka keenayo inay ka keenayso marka abwan aad mahadsan tahay maansadaas wax sheega aad noogu soo bandhigtay Habeen Media Production annaguna waxaan leenahay asxaabta waad aragtaan waxa ka soo baxay abwaankeena miraha ka soo burqanaya kuwaas iyo kuwa ka badan buu inoo soo socdaan insha Allah Habeen Media Production waa inaan wada taageernaa subscribe-ta like-ta share-ta comment-ga insha Allah هيا بوين ما شاء الله dad macsan tahay saaxiibkay intaas aynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka oo aynu maanta ku soo qaadanay maansa yar oo aynu kaga hadlaynay iska waaqic ajriyo waxyaabaha adduunka ka dhex taagan waxaan u mahadnaqayaa kaamiramankeena Axmed aad iyo aad baad mahadsantiin meel kasta joogtaan waan salaamayaa meel kasta ku nooshiin